kulamo xasaasi ah ayaa magaalada Muqdisho uga socda caawa hogaamiyaasha sarsare ee wadaadada Ahlus Sunna wal Jamaaca oo muddooyinkii ugu dambeeyay dalka ka maqnaa. Macallin Maxamuud Sheekh Xasan waa hogaamiyaha ugu sareeya ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ama kooxda Ahlus Sunna wal Jamaaca iyo sidoo kale Sheekh Shaakir Cali Xasan oo isna kamid ah hogaamiyaasha sarsare ayaa ku shirsan magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale kulamadan ay ku heliyaan saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku beel ah ama ku reer ah marka la eego saami qaybsiga Soomaaliya. Sheekh Shaakir Cali Xasan ayaa dhawaan dib ugu laabtay dalka isagoo ka degay magaalada Muqdisho halkaas oo kulamo kala yeeshay hogaamiyaha ugu sareeya Ahlus Sunna Macallin Maxamuud Sheekh Xasan. macluumaad kala duwan oo ku gadaaman kulamadan ayaa sheegaya in dhawaan ay u safri doonaan Galmudug isla markaasna ay gaari doonaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyagoo sidoo kale tagi doona magaalada Guraceel ee gobolka Galguduud oo fariisinka ugu weyneed ee kooxdan ahaa tan iyo sanadihii la soo dhaafay. inkastoo tiro 2 jeer ah lagu weeraray magaalooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb isla markaasna weeraradaas ay sababeen inay iskaga cararaan dalka, haddana weli kama aysan quusan inay mar kale gacanta ku dhigaan hoggaanka maamulka Galmudug oo muddo ay ka arriminayeen gobolada dhexe ee Soomaaliya. waxa ay ku soo caanbaxeen ama banaanka ay ku yimaadeen dagaallo ay la galeen kooxda mintidiyiinta ee ka dagaalama Soomaaliya iyaga oo ka saaray magaalooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb muddo ka horreeyay 15 sano. waxaan sidoo kale la ogeyn waxyaabaha ku soo beegay kulamadan iyadoo macluumaad kala duwan oo aynu helayno ay sheegayaan in dowladda Soomaaliya ay wada hadal ama wada xaajood kula jirto. hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa u arkaa kooxdan oo mar kale soo laabata in laf dhungasho ay ku noqon karto awoodiisa maamulaya deegaanka isaga oo qirsan in deegaanka haddii ay joogaan aysan ka hana qaadi karin amaradiisu ama aysan ka soco karin. wixii macluumaada ee ku soo kordha safarka kooxdan la filayo inay Galmudug tagto dhawaan iyo sidoo kale sheekooyinka ku gadaaman waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe.